zwoola iyo nawaxigeda waan ku faraxsanahay in inteena oo Soomaaliya inuu meel isugu nimaano inuu kaga hadlayno danaheena waxa ku yiraahdaa programka inuu isugu nimaanay waa qof walba iyo wixii maxaa ku yiraahdaa kaga aadan yaani dalka inuu ku loonahay oo aanu nimaanay oo soo maxaa ku yiraahdaa dalka inuu soo kacay sidii inuu ugu noolaan lahayn sidaa daraadeed program badan baan soo diyaarinay oo aan la qaybsanayno oo fikirkiina iyo maxaa ku yiraahdaa aqoontiina ama lagu dhaantaan ama haysaaniin in isku wadaagsanayno maxaa ku yiraahdaa haddaan maxaa ku yiraahdaa dumaro awlaha guud aynu ka hadlayno waa waxa maxaa ku yiraahdaa Jaliyada laga sugaayo ama ilaa hadda ay qabatay waa waxa maxaa ku sidii loo heli lahaa meel guud oo taagumada Soomaaliyeed ee zwoola iyo nawaxigeda degan ay leedahay oo lagala soo xiriiro oo ummadda dawladda maxaa ku yiraahdaa yaani la dhaho dad Soomaaliya meesha maxaa ku yiraahdaa lagu tagayaa oo leh waa dhibaatadan haysata oo xagga qoyska oo maxaa ku yiraahdaa baaxadeedu weynaatay oo carruurta Soomaaliyeed oo la iska qaadanayo Jaliyada way socotaa meelo badan bay tagtaa maalin kasta carruur Soomaaliyeed oo 200 ama 300 ah oo meel ku xiraysan oo la leeyahay yaa maxaa ku yiraahdaa yaani soo bartay maxaa ku yiraahdaa carruurta loo hayo oo aan ku wareejinaa ayaa la soo arkaa wax badan maxaa ku yiraahdaa ayaynu ka wada hadli doonaa casha inoo taala waan suuraysan doonaa waxaan ku furaynaa aayadaha quraanka dad muslimiin ah maadaama aynu nahay waxaan ku soo dhaweeynaa Umar الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم. وما سيا عمر برنامج كان محاكر على قصة زعلة يا هدينا بإدمه وحا محاكر على إلى مدية أيام إيش مكاني وحاكم إذا أفكا وحاكم إذا علنك وحاكم إذا دينك ومحاكر على بقول كيف بقول تن مسلمين النهاية sidaa daraadeed waxa maxaa ku yiraahdaa haddana ku soo dhaweynaa inaynu waxa kaliya kala wadanimada wada ku yadhahay heesta calanka maxaa ku yiraahdaa wixii lagu wada istaagno baan ka codsan lahaa ma sirtiin
jaaliyadda zwoola nawaxigeda oo ka kooban 7 xubnood 2 gabdhood iyo 5 wiil ama 5 oday inaan dhahaan roonay haddii kale waa nala qabsanaya ilmaamay hadal kuma jiro walaalayaal siduu jaamaci ku sheegay wuxuu ka mid yahay guddiga abaabulka sameeyey looma kala harin halkan waxaan usoo istaagay keliya horta inaan idin mahadceliyo haddii ay noqoto magaalooyinka aan marmid u tilmaamo khaasatan magaalada raanto dayfinter amsor hiirde babafeld ebe zwoola mebel marka hardan dareekh oreg emalod dhammaan waxaa jirta wadajirka wax weyn waaye iyo daronta wadajirka wax weyn waaye sababta waxaa keenaysa raashinka hadda la cuni doono gabdhaha iyo oday wiilasha halkan jooga ayaa guryahooda lagu soo sameeyey waana wax cajaa'ib ah sababta qofka intuu isxilqaamay inuu ku talagalo inuu qof walaalkiisa xafladii programkii loogu talagalay inuu qaybtiisa ka qaato wax badan baan rabnaa maanta inaan idiin sheegno waxaan keliya furitaanka ku samaynayaa anigu mar labaad ku hadlaya guddiga magaalada iyo fanaaniinta noo jooga 3 qofood ee noo yimid idijoogooda Faadma Shiino Maxamed Mototo iyo Shish iyo DJ Man oo isaga hadda ah magaalada zwoola dhalinyarada ugu xubnaha firfircoon rag badan oo odayaal madaxa noo jooga waxaan rajaynaynaa mid inaan uga dhalin inay hadlaan waana bixiyaan sheegaanna waxaad jaaliyadu tahay macnaheedu jaaliyadu macnaheedu inay iyaga noo sheegaan iyo inaan annaga dhexdeena atacaawanuu cala albirri waalcudwaan baa ilaahay qur-aankiisa ku yidhi qofka kale inuu kaalmeeyo waa waajib dad baa waxaa laga yaabaa inay aaminsan yihiin war maxay jaaliyaddan u ordaysaa oo rafaadkan u maraysaa wax kala maa macnaheedu haddaad dib u laabanno waxaan ka nimid waddan Go,
Así